Waaga kulanka labaad xiisa badan baa jiray. Kulanka u dhaxeeyay kooxda dowladda hoose iyo ciidanka asluubta. Tababaracaynaasha waxa uu ka hor yimi tababaradii dhaba. Kulankaas waxa ahaayeen kooxo inta badan ciyaartooyda aad u kala isku weedaarsada oo xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay dhowr ciyaartooy bay kala qaateen. Halka Wardi, Cabdiraxmaan Kajaande, ciyaartooydaas ay ahaayeen kuwo ka tirsanaa kooxda ciidanka asluubta. Nuur Xaashi oo kale sanadka hore waa ka mid ah ciyaartooyda ciidanka asluubta maaliyadooda matalaya. Sanadkan iyaguna waxa ay heleen ciyaartooyga hero oo kale. Maxaa la is oran karaa kulankaas labada macalin ay iskugu awood sheegteen in kastoo ciyaartooyga DJ uu gool u dhaliyay gool hayuu soo baxay. Horta mistake ba ka dhacay ciyaar adag bay ahayd oo horyaal wiigan ciyaartii ugu adkayd bay ahayd. Horta kow Caynaasha isagas khalday oo Caynaasha tiimkiisu waynu naqaanayo waa tiimka kubadda fiican ciyaara. Ma taqaanay aadka maalin walba kooxda la ciyaarin haweenka taayirato si fiican u ciyaara. Caynaasha qaladku sameeyay waxay ahayd afar dhex ku soo galay. Waxaan hore kuugu sheegay kooxda maaliyadda qalad noocaas hore samaysay iyo dowladda hoose afar dhex haddaad ku soo ciyaarto istaadinku shaqo adag kama qabanaysid. Haddaana kooxda kale ku khaldamin. Sababtoo ah dadkeenu kooxuhu nimka dhexdaba lagama ciyaaro kubadda. Dhexda lagama ciyaar karo. Sababtoo ah liiradinu ma control ma champ ma qaadi karaanba. Markay ciidii ku noqoto ciyaartu way caburayaan. Nin shuudlo oo barta ka laagi karo oo barta ka dhalin kara ma jiro. Dad isku dhufsanayo deynta kubadda saas ku dhufsada gudaha galayana way yartahay. Markaad doonayso afar dhex ayna ku ciyaarto waa mar aad kooxda cabsi ka qabto oo aad difaacanayso istaadinka inta badan. Marka Caynaasha maalintii dhawaad isaga qalday isagoo haysta weerar fiican oo de garbaha ninkii maalintii dhawaad soo galay aadka u orodka badnaa Maxamed Jaamac oo kale farsamadiisa hore ma taqaana u fiican tahay. Ninkaas oo kale deyn ku soo bilowdo oo saddex weerar iskaga ciyaaro. Marka shaqo ka qabsan lahaa oo jaanis badan oo haafkii dambe ay sameeyeen ayuu sameyn lahaa. Marka laga yimaado ciidanka asluubta kooxda dowladda hoose ma la is oran karaa qaab dhuumashaabay ku rabtaa inay kaga mid noqoto championka iyagoo soo ciidsanaya kaalanta labaad. Horta dowladda hoose waa team weyn oo anigu imika tartanka ka socda inkastoo ay mar lumeen haddana oo carqaladana ku dhaceen oo dad badan ka maqnaayeen waa teamka ugu adkaysiga badan lan qaba anigu fikriyan iyo macalinka ugu dulqaadka badan leh sababtoo ah macalin ma xamili karo in 12 qof ka baxaan haddana ay teamkii sii jiro haddana dadka iska celiyo aad bay u adag tahay oo kooxo waaweyn waa jooga ama guulo muhiim ka gaaro aad iyo aad oo waliba mustawaheedina ku sii hayo waan taa oo ku bogaadinaya waan ku amaanay maamulkooda iyo macalinkoodaba dhalinyaradii ma taqaanayay gaab baa galay kooxdii haddana wali waxba iska celinayaan qorshaha ay dhigteen waa qorshe fiican waana tiimamka ugu traininka adag leh ee ma taqaanayay kubadda cagta imka Hargeysa caasimadda ka ciyaara tiimamka ugu xoogan weeye trainingkooda marka la eegto sababtoo ah daqiiqada koowaad ilaa 9aad isku si bay u ciyaareen waxa la kasay training ka muuqdo marka kooxda dowladda hoose aad bay u wanaagsantahay gud weeyaan kulankaas labada macalin waad eegtay qaab ciyaareedkooda kulankaas Suldaan oo kale waxa uu ka dhigay kooxdiisa gool isagoo goolkana uu saxay halka DJ goolka koowaadna isagoo u dhaliyay bal ciyaartooydan kooxda dowladda hoose iyo goolashan dhashmay bal qaab nuucay ayaad soo kartaa way ugu faa'iideysteen kooxda ciidanka asluubta horta waa qaladkii ku sheegay champion meesha ka jiray may filan oo nin bay isku qufulayeen inta badan kooxda asluubtu may filan raggan inay goolasha ka dhalinayaan waa sidan ku sheegay dad kale oo inta kastoo DJ yar yahay oo imka soo baxay haddana ma filaneyn oo meeshan ka may filan DJ hira qalad sameeyo oo u dhibay nin halkan taagan sababta goolka u dhashay sababtaas ahayd Suldaanada wuxuu dhaliyay wada arkaysay oo gool ma taqaanay Nuur Xaashi caawinta uu ka helay nin kooxdiisa hore la ciyaaraya dhiiga ku jira dhiiga ciyaar maaha marka kooxdan dowladda hoose waa laba kooxood saaran kartaa oo marba qola lagu soo dhigay mar Nuur Xaashi marka rag football waa ciyaarayay wada arkaysay ciyaari hore marka dowladda hoose macalinka shaqada badan haya ciyaartooyga mahad Umar waxa lagu ogaa ciyaaraha bariga hore horyaalka kulanku ciyaaraha waa halis gali jiray maxaa la soo oran karaa iska bedelay qaab ciyaareedkiisa dhaxda marka la eego kooxda laftigeega iyada laftigeega waa mid u baahan in aad loo akhristo horta mahad Umar waa dadkan u aqaan sigisida magaalada ugu fiican anigu aan aad ku aaminsanahay mahad Nayl waa sigisida magaalada ugu fiican laakiin dabeecadiisa waxay tahay dabeecad adag garoonka markuu galo dhiig u shubaya wuxuu ciyaarayaa sidii isagu kooxda leeyahay waana takeynaysa inuu barasharka uu ku dhaco iyo kooxdiisa oo aan aad u caawinin oo raacashadiisa adag laakiin waa dadka ugu farsamada badan dhexda ka ciyaari kara isagoo ninka la yiraahdo Jimcaale Sooraan isaguna wel weeyaan ninka yari ninka taaxa la yiraahdo kale marka
mahad nayl waxyaabaha dejiyey baan mataqaanaayo kugu taaban karaa. horta ninkii ganaax weyn baa ku dhacay oo 2 sano la yidhi dee ma garanaysa inkastoo la cafiyey ayaa kubadda ka maqnaanaysaa. dee markaa nin dadka iskala fadhiisto sideedoo kalena oo dee mataqaana falanqeeyahayaasha iyo dadka daawadayaasha taageerayaasha ku beeri gaadhay. markaa sababtaasaa ku kaliftay marka aad ka dhex baxdo bii'ada aad ku dhex jirto dad kale ma sheekaysan karaysid oo dee waxaad ka noqonaysa qof iska caadiya. marka dee isaga laftarkiisu uusa soo akhristay inuu qaldamay uu qalad weyn sameeyey. markaa sababahaasoo kalifaya inaanu kaar dambe iyo dagaal dambe iyo buuq dambe aanu qaadan ayaan isleeyahay uu ka waaya arkay. isfahanka daa'uud iyo suldaan iyo isfahanka daa'uud iyo xamsaawi keebaa la is odhan karo waa lagu guuleysan karaya. horta xamsaawi weli tiimka lama qabsanin laakiin suldaan dee isagu stadiumka ula haystaaba oo daa'uud iyo suldaan baaba aad moodaaba inay si fiican iskula haystaan. sababtoo ah suldaan uu ka yara weyn yahay uu ka waya aragsan yahay in badan buu soo ciyaaray kooxdan uu kusoo jiray kuwa lala ciyaaray uu kusoo jiray tiimo fara badan stadiumka aad buu garanayaa. marka hadde waa nin weyn oo de khabiira loogama sheekan karo saasaa difaaca loo qabanaya oo aad buu uga khabiirsan yahay. waa hagaag kulan kale aad u xiiso badan baa jiray warfaafinta iyo caafimaadka 14 dhibcood 13 dhibcood ayaa la kala lahaa. kooxda caafimaadka kulankan guul muhiim rabtay inkastoo 2 hal ay ku hogaaminayeen kooxda warfaafinta ka daba keentay inkastoo macallinkooda uu ka maqnaa kulankan uu ka ahaa Mrs kooxda caafimaadka waa kulankii labaad ee soo noqosho lagu sameeyay iyagoo natiijada xagga sare marinaya. tobabare Shamsuddin iyo kooxda maxaa la is odhan karaa maxaa sabab u ah soo noqoshadan afka qalaad ugu yiraahdo comeback. horta Shamsuddin iyo tiimkiisu dee gool bay dhalinayaan horta waxay ku fiican yihiin oo guuleedkiisa hadda shaqaysanaya iyo nimanka weerarka isaga laftarkiisa weerarka ku yar barashadii tiimkiisu weli ku jira waan anigu sidaan dee mataqaana waa nin weyn oo khabiiro booliska soo ciyaari jiray waa nin weyn oo kubadda cagta soo ciyaari jiray oo dee lama odhan karo garasho la'aan baa haysan laakiin weli tiimkiisu wuu kala baranaya oo sidaan hore kuugu sheegay oo kale ninka khadaaro la yidhaahdo halka haddaan taagan anigu dee khadaaro kale sabab aanu mataqaana ciyaarta uga saaro maba jiri karto. tiimkiisa inuu barto markaad gool yeelato dee inaad isdifaacdo. caafimaadku waxay u ciyaarayaan sidii aanay kalaba jeclaynba iyadoo gool iyagoo gool lahayn mar walba way kugu soo hayaan weerarkii mar walba kugu soo socdaan way ku guuleysan karaan laakiinse waa inaad horta adigu ilaalisaad maradaada dhowrataa. markaad maradaada ilaaliso kadib waad shaqaysan kartaa laakiin mar adigiyo bannaan imika maalintii dhaweyto halkuu dhexda godadka ka samaysan lahaa buu nin weerar keenay caraba ninka la dhahdo kale ayuu keenay axmed carabo kale keenay uma baahnay axmed carabo kale haddaan u isticmaalin axmed carabo nin dheeray inuu kubadda ka soo saaro markuu bedelay ninkii dhaawacmay inuu ninkaas soo geliyo mabay ahaynba qofka loo dhexa ama qofka jidaayo kale waa difaac jidaayo kale mahaaloo kala fadhiyay inuu ciyaarta nimankaa isticmaala ahayd sababtoo mar haddaad gool leedahay nimankana ay kugu soo socdaan waqtiguna uu gabagaba yahay difaac inaad ka gashaa wanaagsan. nimanka warfaafinta la yiraahdo ciyaartooyda afkooda hore akhtar fara badan bay sameeyeen sida ciyaartooyga jiro faanto ciyaartooyga macaanka atomo goolkiisa ugu horeeyay oo isagana aan xusano inuu u dhaliyay kooxda wasaaradda warfaafinta waliba kulankaas uu barbardhac u dhaliyay bal qaabkaas ay kooxda warfaafintu ay u muuqato ma la is odhan karaa waa mid ku sii jiri karta horyaalka kooxaha heerka koobaad. horta wixii maqan horta ilaahay baa og inay ku jirayso iyo dawaa horta uu adag yahay bahalku iyo in la kala qaadayo horta uu adag yahay afka la isku haya waa la saaran yahay laakiin ragga ay haystaan rag bii ku sii nagaadaya uma eka sababtoo ah maalintii qaladaadka ay iyagu sameynayeen bay iskaga badiyeen. jiira faanta wuxuu la tegay 3 gool ugu yaraan buu la tegay waa maalin kasta macaanka ninka la najiib labadoodu horta laba nin oo aad u farsamo badan anigu Bembe iyo Neymar labada nin baan ku magacaabaa wada midna farsamadiisu waa khatar midna orodkiisu aad buu fiican marka halis badan bay leeyihiin oo markay doonaan way ka dhalin karaan laakiin maalintii dhaweyd waxyaabaha ay sameynayeen bareed baad moodayeen goolasha ulminayaan macaanku uu imanayaa farsamadii badneed uu meesha ku lahaanayay iyo dee joogitaanka iyo xasilidii baa ka maqnaydba ninka jiira faanta la dhado waxaad moodaaba inaanu kalaba jeclayn in goolka dhaliyan kale sababtoo ugu dambeysay khatar baa kooxdaada marka la haysto xilligaas oo kale dee chanceskaas oo kale inaad lumiso horta wax qoran weeyaan laakiin chanceskaas inaad adigu isticmaasho awooddaada weeyaan. marka kooxda warfaafintu waa tiim yar waaya aragnimo rag fara badan waaya aragin ay ku dhex jiraan lama oran karo macallin xumo haysa tiim xumo haysa lama oran karo garoonkina lama qabsan lama oran karo marka weli tiimkaas inuu wuxuu u baahan yahay awoodooda u isticmaalo. Beeri Sacuudi ciyaartooyga la yiraahdo ma u baahan yahay in chance la siiyo isagoo qaybtan dambeynta laga daayo soo fursado badan. Beeri Sacuudi tartankii hore u ciyaari jiray asluubta oo kale
wuxuu ahaa game changer nin kasta maalin kasta ciyaarta bedela laakiin saan uga baranay imika maaha anu saan arkayo mana iga aha inaan dhaleecani laakiin ciyaar kastuu soo galo wax saameyna kuma yeesha imika sidoo kale fursad lama siin markaa taas كل هرتا أنا chance إني سيون أركيا صوتها بدل بكو إيمانيا صوتها أسلوت مركب ولا بدل بكو من شري ولو ده مركب ده مو بوسكي صلا بحي لكن إيمك واحد مودا سجلت كيسون نيت بدن هاي واي فريق كده سجل لاقي شري meelaha oo kale chance badan ka sameyn jiro maalin waxaad garanaysaa inuu afar dhowr baas uu ka dhiibay dhexda marka ma jiraan dhaqdhaqaaqiisi badnaa baan jirin amba waxaan oran karaa anigaasi waa training ka ku yar ama de mataqaana moralkii horaan u hayay